daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo vlog xagga u socona waxa way maanta waxa u socona degmo taariikhiya leeyni sheegi maayo laakiin way iska garan doontaan insha Allah meel badan baa sii mari doona nala socda dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydi hadda magaalada ka baxnay waxaan joognaa haas meel aan gaariga shidaalka ka shubanayno safarkii hadduu noo bilowday nala socda channelka naga daawanaysana waa Suweys Kacayte dhinaca kaamirada waa Cabdiwali Gallayr aniguna waxaan Suweys Kacayte la soo raaca dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydi qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydi qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay waayahay daawadayaal halkaan aan soo gaarnay waa deegaanka Libaaxo meesha u soconay ayaa looga leexdaa meeshaas waa xagee hore idima sheegayo laakiin indhihiina ayaad ku arki doontaa soo raaca dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydi qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydi qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay waxaan soo soconaba waxaan soo gaarnay deegaanka Qarxis wuxuu ka tirsan yahay degmada aan socono deegaanka Qarxis horta dad badan baa isweydiinaya Qarxis maxay tahay macnaheedu maxaa loogu bixiyay dadka deegaanka ayaa noo sheegaya waxyaalaha ay kula baxday Qarxis sidoo kale waxay noo sheegayaan oo aan weydiin doonaa hadii Allah awood la idmo bulshada Qarxis bal waxa deegaanku uu caanka ku yahay Maxamuud haye maanta safar baan soo galnay saacaday soo qaadanay inta soo soconay degmada Qarxis baan nimi bal maanta inta jidka ku soo jirnay iyo degmada Qarxis iyo waxa ishaadu ku dhufteen oo aragtay nooga sheekay waxyaabo badan baa isheedu qabatay hadii dad dhul soo maray baan nahay ilaa Garowe ilaa magaalada dhawaad Qarxis baa loo bixiyay ma aqaan waxa Qarxis aad ugu dhigan tahay waxyaabo badan baan soo aragnay xoolo badan baan soo aragnay meerisi kala duwan geel baan soo aragnay ari baan soo aragnay ugaarta baan soo aragnay oo deero si ordis arkaysid laakiin deero inaad dilootid baa rabto qorigaaga la soo baxay deegaanka xeer baa ka yaal deegaanka xeer baa ka yaal ugaarta la iska dilo sharci baa ka yaal marka sharcigaana qaban lahayd xitaa hadaan isku day lahayn dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii sanadadii hore barwaaqay ahayd reer baaday bahashan ku dhisantay Soomaaliya hadda dhowr sano hadda abaar bay ahayd magaalada xooli waa naga tageen maxay roob ma lahayn biyo ma lahayn dad baa iska jooga hadda marka dayrtii hadda dhaweydo oo kale roobkii dhowr nur ma qaban saddex nur roobna ma qaban dadkii waa naga qallalan yihiin baabuur baa biyo lagu doonaa wuxuu yahay $200 mar halkaas laga dhaca waxba lagu jiro laqaya dadkii abaar biyo la'aan baa haysata deegaankan inta badan waa deegaan lagu yaqaan xoolo oo inta badan oo cad iyo caano ku lagu nool yahay dadkeedu ay ku nool yihiin bal iyada ka waran caqabad noocee ayaa ka timi maadaama ay wadankii abaar u noqday xoolo joogin xagee caana hilib keenaysa
يا ما يتليسا حلو waxay ku yimaadaan biyaha cunnada roobka intaas ku yimaadaan deegaanka qarxis waa deegaanka balaaran uu weyn yahay waxa qarxis loogu bixiyana 72 baa nin Taliyaan yimi ceel buu ka qoday biyo ka soo saaray sidaas qarxis loogu baxshay maxay caan ku tahay marka qarxis waxay caan ku tahay deegaanka xoolaha iyo nabadgelyada deegaanka qarxis bismillaah deegaanka qarxis waxa loogu baxshay qarxis waxa laga qoday ceel waxa ceelka laga qoday 72 ceelkaas biyo badan buu soo saaray muddo yar oo bil ka kooban ka bacdina haduu biyaha soo saaray isla waqtigiiba qoladii kambaliga ceelka qodaysay ceelkii qalabkoodan way kala baxeen ka bacdina waxa weeye waxay ku celiyeen bir bay ku gufayeen sidaas marka wax loogu baxshay qarxis loogu baxshay in ka dambaysan biyo waa laga waayay magaca waxa loogu bixiyay meel biyo laga baaray Mareykan uu qoday oo ciid cad uu ka soo saaray ciid cad ciidaas baa waxa loogu bixiyay iyo qarxinta ceel baarkaas waxa loogu bixiyay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii ubad aanan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii bahashan horta asal ahaan waxa la dhahaa mayra la dhahaa mayradaas laga sameeyaa ka bacdi hadeer saa markii loo falkiyo hadhow waa la tolayaa waxa laga dhigayaa docgashi ama dulsaar haba sida noqoto ma garateen marka waxa way dadka halkan iga daawanayo kale way isaga baahan yihiin inaan casharo u dhigo waridiya dhaqanka see ku ay dhacla shaygan ku yaar mana ku wanaagsanay ayaga sheegi doona kootiga ku sheegi sabaaha masiifalkiya habreeray سوى وروح والله سأقرحي والبفيرية ناقي جوانا أكسر مجلسه الله يكتها انت صوضة dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii ubad aanan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii kubad aan dhalay oo kala andhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay xambarafayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay xambarafayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane duniga cuntada laga helaan shidaaloo dhigine dalxan subagaadhay oo karuurdhay ladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta nin dhadhamiyey kuma doorsan karo dowrta
dibadeede duni gacantada laga helaanshiina loo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo midhaqa dhuumanta dhadhamiyey kuma toorsan karo dhowrta dibadeede waxaan taagannahay toga odol oo u dhow isla ereyada u socono ama degmada u socono meeshaan u socono waxaan tagaynaa xilli habeenimo bay ku beegantahay laakiin waxaan isku dayeynaa inaan markaan tagnana aan nala socotaan dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyaqay sidii ubad anan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhuulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyaqay sidii kubad aan dhalay oo kala dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhuulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane duniga cuntada laga helaanshiina loo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaqa dhuumanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dhowrta dibadeede duniga cuntada laga helaanshiina loo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta safar dheer kadib waxaan nimi halkii aan u soconay oo ah degmada ayl ee taariikhiga ah alxamdulilah ilaahay waana nabadgeeyey halkaa u soconnona waa degmadan vlog waynoo sii socon doonaa laakiin asxaabta waxaan u sheegaynaa maadaama aan nala socoteen inaan nama tagnay degmadii